shabaab oo maleeshiyada qofkii soo dila hadda ma lees maqlaayo yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xinihiisa soo laalaadina keenay $5,000 dhiiranayaal ka soo bidhaamay dhulka Hirshabeelle ayaa dollar lagu siiyay soo goynta madaxa dhagarqabayaashii dhulkooda ku dhibaateyn jiray waaye badan haddii Mareykan dollar dul dhigi jiray madaxa dilaayaal duurka ugu jira gumaadka dalkooda maanta waa madaxda Soomaaliyeed bal halkan eeg waxa dhinacayga taagan taliye xigeenka ururka 39 Mr. Farax $10,000 waa ugu doon xoolo dhaqatada iyo beeraleyda Soomaalida waxay sanadihii dambe u nuglaayeen dhagarta khawaarijta al-shabaab balse maanta waxa ay heleen fursad ay uga argoostaan dilaagii shalay khawaarijta dalkan iyo dadkan ku soo duushay waxaan diyaar u nahay in aan la dirirno qof kasta oo Soomaaliya oo damqa hayso waxay leedahay lacag amaal marina dawladdeena iyo dalkeena iyo dadkeena nasiib waxaan diyaar u nahay in aan dilno nin kasta oo igu dayo furki waa kaas muujeedin dawladda Soomaaliyeed oo habeen iyo dharaar ku fogaan soo afjaridda dhagarta cadowgan gudaha Soomaaliya ku qaangaaray ayaa buuxisay kaalinteeda garab istaagga dadweynaha ku dhiiraday inay iska diidaan dulaysiga khawaarijta halkan dhugo waa Shabeellada Dhexe sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa dollar guddoonsiinaya laba ka mid ah mujaahidiinta deegaanka oo madaxa ka soo gooyay horjooga shabaab ahaa iyo dhagarqabayaashii ilaalinayay qoragaagana waa leedahay $5,000 waa leedahay afartiina nin oo soo dilatay iskale nin madaxa ninkii soo dilay $5,000 uu leeyahay xornimo niyadooda timaadada oo samaatay barwaaqada Rabbi oo u hortay iyo rabitaanka guuleystay ee dawladooda ayaa sababay sawaxankan iyo jaanta ay rogayaan reer guuraaga ka guuleystay cadawgooda al-shabaab